gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa safar qaatay muddo 3 casho ku soo maray deegaanada gobolada Togdheer, Daadmasheedh iyo Buuhoodle. kormeerkaasi oo ahaa mid uu xisbiga kulmiye ku soo wacyigelinayay dadyowga deegaanadaasi inay qaataan kaarka codbixinta ayaa waxay soo mareen deegaanada Oodweyne, Xaaji Saalax, Duruqsi, Dhuqushay, Dhagaxdheer, Baledhiig, Qorolugud, Shanshaacade, Warcibraan iyo Qoryaale. waftigan ayaa deegaan kastoo ay marayeen waxaa soo dhaweyn dareen ku lamaan yahay u sameynayay dadyowga deegaanadaasi, waxayna indhahagu qabanayeen dadyow tiro badan oo kaga hor imanayay waftiga degmo kasta iyo tuulo kastoo ay booqdaan. halkani waa degmada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmasheedh. bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa si balaaran u soo dhaweeyay xisbiga kulmiye. gudoomiyaha aan mujahid musharax musabbix cabdi qaadana ay ku soo dhawo xarunta gobolka Daadmasheedh. waxaa la ku tusay cudurtaad ku leedahay xisbiga ku leeyahay oo runtii lacag kuma soo saarin dadkan wax kale oo soo saaray waa tabitaanka jacaylka u qabaan xisbi xaakimka talada. sidoo kale degmada Xaaji Saalax oo ka mid ah gobolka Daadmasheedh ayaa waftigani si balaaran loogu soo dhaweeyay. codkana diyaar baanu kulanahay halganka dheer ee adagna waa kula galaynaa xisbi xaakimku inuu mar labaad ku soo baxo xukunkana halganka si fiican baanu kula galaynaa. waxaanu idinku soo dhaweynaynaa si mar iyo laba iyo saddex iyo afar ba aanu idinku soo dhaweynaynaa degmada Xaaji Saalax. intaasi kadib waxay waftigan u soo kactimeen deegaanada Duruqsi, Dhuqushay, Baledhiig, Qorolugud, Shanshaacade iyo Warcibraan oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo Buuhoodle. waxayna waftigu indhahooda ku soo arkeen awoodda ay ku leeyihiin deegaanadaasi. wafti ballaaran buu hogaaminayaa waa wafti aad u culus wuxuu inagu karaameeyay innagoo ku jirna diiwaangelinteennii inuu cagtayna soo geliyo oo ina dhiiri geliyo oo inaynu kaadhka qaadanno ayuu horta gudoomiyaha marka hore u socdaa inuu ina dhiiri geliyo. maalina waa kaambeyn, maalina waa diiwaangelin. war Duruqsi ay saakaynu wada joognaaye hunnuhunnuno hadal ma aha, himbiristina arag ma ahe. maxaa inoo ballana subaxa doorashadu dhacaysa? maxaa inoo ballana madaxweyne waa kuu maqannahay. ballankayagu wuxuu ahaa gurigaagaan kuugu imi madaxweyne. waxaan kuu ballan qaaday inaannu codka ku siinayno degmaan. maasha waa maalin weyn, waa maalin farxad leh. waxaa inoo yimi oo inala jooga oo inoo hoyday gudoomiyihii xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha mustaqbalka mujaahid muuse biixi cabdi. waxaana inoo hoyday madaxweynaha mustaqbalka aadaan madaxweyne kuu soo dhaweynaynaa. boqoshaad diyaar baan kuu soo dhaweynaynaa, kaliyalla baan kuu soo dhaweynaynaa, farxad baan kuu soo dhaweynaynaa. wixii aad doonayso maanta insha allah bismillaahi kariim waa naga heraysaa anoo ku hadlaya afka degmada. muuse biixi cabdi iyo kulmiye haddaynu doonayno inaynu u codayno oo u hiilinno oo taageerno waxaynu ugu hiilin karnaa kaarhka oo aynu qaadanno. dal badan baad soo martay, aniga degma ahaan Buuhoodle iyo aad soo martay oo hadday joogtaa. war codka Muuse Biixi ma laha, war codka Muuse Biixi ma laha. iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo wasiirada, xildhibaanada, muxtarabka kale ee uu hogaaminayo salaadiinta, cuqaasha ku soo dhawaada dhammaantiin inta leegdihiin. haddii geelu kala yaaco muusow gurboob looma diro gaban carruureed ee garmadoobaha kaa xaslada aan gaba ka suuraynee gobannimo nimaan hawl u gelin ama u gaajoonin oo maalintii ay gadnayd yurub u gooshaayey oo gaadhi raaxiya sariir gurada loo geeyey oo haatan soo gida faqaa waa gafqana weyn oo haatan soo gida kacaa waa gafqana weyne gorgorna haad ka weyn baa layidhi gooriyaa la yidhi. wasiirada howlaha guud iyo warfaafinta, wasiiru dowlayaasha maaliyadda iyo xanaanada xoolaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa bulshada deegaanadaas uga mahadnaqay soo dhaweynta u sameeyeen iyagoona ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta. ayla saaka iyo maalmahan baa u tabaabushaysanayeen inaad soo dhaweysaan waftidaa ballaaran ee ka socota xisbiga kulmiye iyo dowladda oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga. runtii soo dhaweyn aad iyo aad u qiimo badan oo aan loo kala harin bay ahayd. mar labaad aad iyo aad dadka waanu gubaabinayna waxaanu lahayn kaararka qaata laakiin idinku hawshaa waa ka farxalateen.
deegaamada kalena idinku dhowdhowna caawiya kaadharkana inoo xafida labadaa qodob baan imika idiin sheegaynaa oo dhowrka bilood doorashada ka hadhay marka lagu yidhaahdo hadhowtu xaggaad u codaynaysaa tiraa kulmiye waa inaad kaadhkiina la soo baxdaa dee kaadhkiina waa kan marka hawshuba dee intaasaa nagaga hadhay in kaadharka la qaato kaadhka inta la qaato oo qoyskaaga oo quraya naftaaduna aad ka fakerine ka xanuunsanaya iyo ka daallan iyo ka gaboobaya aan soconayna kaadhka qaatay intaba aad ka war haysaan oo tuulooyinka ragga kaadharka haya aad ka war haysaan oo kaadharkaasu meel khaldan aanay gelinne qof gaari aanu gacanta ku hayne nin waliba kaadhkiisa xajisto oo uu ku codeeyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa ka warbixiyey ujeeddada safarkooda isagoona mahadnaq ballaaran u soo jeediyey bulshada ku dhaqan saddexda gobol ee sida ballaaran u soo dhoweysay anigoo ku hadlaya magaca wafdigan iyo Dhawayntii Kulmiye oo dhan oo dad qaranka Soomaaliland meel walba joogta waxaanu idinka mahadnaqaynaa soo dhowayntii ka heer sarreysay ka duwanay soo dhowaymaha kale oo qalbiga ka soo gooday oo soo dhowayn siyaasadeed aan ahayna madaxa jeclaha waa idin ognahay Kulmiye waxaynu ugu midoobaynaa in aynu hore ugu marino dadkeenna oo carruurteennu noloshaynu maanta ku noolahay tu ka wanaagsan ay ku noolaadaan oo carruurtooda tu ka wanaagsan ka sii noolaadaan markaynu si nimaadno een wax wada qabsanno ee caqligeenna isku aaminno ee isku darsanno xoolaheenna iyo xoogeenna ayaynu horumar gaaraynaa markaasaynu nololta ka wanaagsan gaaraynaa waa inoo Soomaaliland dhiso waa inoo Kulmiye xisbiyada mucaaradkii waa xisbiye qaran nin waliba wuxuu leeyahay dadka xukumi laakiin Kulmiye wadada marina waa taa Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer